Ethiopia does not need a naval force because Ethiopia does not have a coast to defend. Ethiopia gave up on a naval force and naval bases, and they don't need that. حسن وحوي واحد مدحوينه فشلمي مدحوينه داعي هدوي هي دول Soomaaliyeed ayaan xabasho siinaya ma yiraahdeen wargada bursiga iyo ciisaha elite-ka ciise waa nin PhD holder malaha waxaan salary awdal baa ku jilicsanaado dadkaas jilicsano wax laga qaadi karaa baad istiri dad wax laga qaadi karo ma lihin wadooyinkiisii ka bayray oo gobolada awdal iyo salary u qaatay beer uu cays la leeyihiin oo uu bixinayo بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو عيسى أحمد نور براء كسو هلا يا بورما وواحد سلام يا دمان ومدة الصوماليات ملك استيشوكتو وحنا ويان مانتا أريما بدن ودت كنهوري على ودوانا كهذا الله يان كهذا وحنا ويان مانتا إثيوبيا أو دمعدي حبهنا إن يسودكتو أو يقصب كسودكتو تاوان دينه هسه maanta shucuubta geeska Afrika waxaan u sheegaynaa in nabadgelyadii ay ciriiri ku jirto ama ay halis ku jirto sababtoo ah Ethiopia oo damacsan xeebaha Soomaaliyeed inay xoog ku qaadato dawladda Soomaaliyeedna difaaceedii uu aad u liito maanta halkan waxa ka hadlaya madax dhaqameedyadii magaalada Boorama ee gobolka Awdal madaxweynaha xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya anigoo la hadlaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay maanta inaad gacanta midig iska goyso ayaa ku dhaanta inaad saxeexdo heshiis Ethiopia siinaya dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed sidii aan hore u sheegnay Ethiopia xeebaheenu way u furan yihiin markay ganacsi xalaala doonayso xalaal duhur baa la maalaabay Soomaalidu tiraa Ethiopia xeebaheena iyo xeebaha Jamhuuriyadda Djibouti labaduba way u furan yihiin markay ganacsi doonayso wax kale doonayso lama garanayo waxa kale doonaysa waa hawlgal military-na maayaan nidhi sidoo kale waxaan inta ku darayaa Ethiopia ciidan badeed bay hadal haysaa laakiin Ethiopia uma baahna ciidan badeed sababtoo oo ah Ethiopia xeeba ay difaacdo maanta male Ethiopia waxay leedahay ciidan dhul iyo ciidan hawo oo ku filan ma garanaysaa Ethiopia markii Eritrea ay ka madax banaanaatay madaxdii Ethiopia 1993 Ethiopia faraha way ka qaaday ciidan badeed Ethiopia uma baahna Ethiopia does not need a naval force because Ethiopia does not have a coast to defend Ethiopia gave up on a naval force and naval bases and they don't need that anigoo ah Sultan Maxamuud Faarax Abraar waxaan maanta halkan shirka jaraa'id ugu qabanay hadal aan aad u qaadan weynay oo uu ka soo baxay ninka lagu sheegayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu Muuse bisha sanadkii hore abiy la saxday MOU-ga wixii qayla ka dhacay waa la ogaa meel walba waa kii maray waa kii Boorama mudaharaadkii ugu weynaa ka dhacay ee lagu taageerayay ee Aabba Xasan la lahaa la moodayay nin daacada oo ka dhiidhiyaya inuu la bixiyo dhul Soomaaliyeed ama bad Soomaaliyeed meel kasta ay ku taalaba waxa si cadaatay inaanay daacad ka ahayn ee uu Muuse iyo Soomaaliland ku xumeynayay oo isagu uu doonayay inuu isagu saxo oo uu qaato waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuud goofafkii iyo dhulkii dawladda siyaad barakatiga u iibinayay maaha badda Soomaaliyeed maaha Seylac iyo Loghayana maaha dhulkii xamare danta guud ahaa u iibinayay maaha Xasan waxa weeye waa madaxweyne fashilmay madaxweyne daacad haduu yahay dhul Soomaaliyeed ayaan xabasho siinaya ma yiraahdeen waxa weeye waa hungurihu waa lacag urursi waa madaxweyne fashilmay hays asilaan leena
hadduu iscasili waayana baarlamaanku impeachmentka ku qaadaan oo ha ka eriyaan jooga meel kasta ay jooga waxaan halka anigoo caaqil qalin tukaale maxamuud salaadiinta gobolka awdal iyo selil waxaan halkan imikaanka shirka jaraa'idka ku qabanaa waxa weeyi wax maskaxdeeda gali waayay oo nagaga yimid xasan sheekh barigii hore badda aad ka xanaaqday gariirkii ka baxay selil iyo awdal ee lagu taageeray waad ogeyd ilaa waad nagaadaysay oo ma hayn wax inoo qabanayaan ku moodayne moosaw iiga joogso aniga bixinaya oo maalin ka waragnay moosaw iiga joogso ana badda bixin aad waa bixine badda nin kaliya tiba bixin karo nin kaliya tina male Soomaali oo dhan meeshay doonto baa joogtay iyaale wax la bixin waxaan ka aqbali karaynaa ma haddii aan nahay dadka degan selil iyo awdal wax maskaxdeeda galayana maaha badayadana lama qaadan karo malaha waxaan selil iyo awdal baa ku jilicsanaado dadkaas jilicsano wax laga qaadi karaa baad istiri dad wax laga qaadi karo ma nihin mana aqbalayno wariga iyo bad iyo bari midna dhulka iyaga lama bixin karo Ethiopian basiir katid waad ku xamar baad maamuli kar laadahay xasan sheekh maxamuud wuxuu garan waayay maalintii lagu xidhay Addis Ababa Ismaaciil Umar Geela ka soo daayay ya ku xidhay aqalka ku xidhay Abiy Ahmed digii ka soo daayay Ismaaciil Umar Geeluha ma intaasuu garan waayay dibtii gaadhay maalinta in la dilo la doonayay iyo haddana maanta Ethiopia u gacan lulaya war isla xisho haddaad madaxweyne tahay anu madaxweyne kuma arkayo dilaal baan ku arkaya dalka iibinaya dilaalki dalka iibinaya ku arkaya laakiin madaxweyne maanta kuma arkaye war isla xisho isla qajil gobolka awdal iyo selil inta qof laga hadhayna waan ku dhibanaynaa habashi soo gali mayso adda soo gali maysid jamhuuriyadda Soomaaliland baa la nidhaa anaga bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo suldaanka guud ee beelaha Samaroon waxa aan la hadlaynaa waa madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sidii aan moodaynay noqon waayay wadooyinkiisii ka bayray oo gobolada awdal iyo selil u qaatay beer wacays la leeyihiin oo uu bixinayo u qaatay ama jagooyinkii Muqdisho ku yaala u qaatay war beelaha degan dadka iyo deegaanka waxa loo baahan yahay inaad golahooga dhaqanka tixgeliso oo aad mudnaan siiso oo waxay doonayaan aad ku shaqayso madaxweyne waxaad garan weyday wadadaadii waxaad garan weyday cidii aad maamuleysay annaga Somaliland ayaana la yiraahdaa Somaliland baanu ka tirsannahay waxaanu nahay ummad jirta oo soo jireena malaha waxaanad garanayn meeshanaad bixinaysa Axmed Gurey baa ka dhashay dadkii ragga ahaayee Soomaali halka soo gaarsiiyay baa ka dhashay waxaad garan weyday dadkani waxay yihiin taariikhdooda dib u baad ya waxaan ku leeyahay madaxweyne wadadaadii waad ka baydhay ummadanaad iibinaysaana ummadaad iibin karaysa ma aha saylac iyo lughaya dadkeegii way nool yihiin waxa weeye waa dad jira waa dad aan la muquunin karin cid kasta oo isku dayda dad ay muquunin karaan maaha madaxweyne waxaan ku leenahay wadada ka baydh meelo kale xaadxaadho annaga ha nagu soo wareegaysan Ethiopia haddaad adigu la heshiinayso si gaar ah u la heshii annaga ha nagu la heshiini barnaamij kale iibi wax kale oo iibsata raadi wardakadayada iyo barnaamijkeega iyo badayada ma iibin kartid waxa weeye xasan sheekh waa kii diidanaa markii hore hadda xagal 360 iswareejiyay waayo isbedelka inta leegna kolka hore daacad kama hayn diidmadiisu marka horeba daacad kama wahayn taasina waxay tilmaamaysaa markaad shalay waxay ku hadlayeen iyo waxa ay maanta ku hadlayaan oo isku lid ah ama opposite isku ah ama iska hor imanaya taasina waa badness of national character waliba badness waxa weeyaan sidii maafiyadii anu waxaan dawladba uma arkay maafiyadii Talyaaniga ciidamadii maafiya talmay wax walba iibinayay bili aadanka dhaqankii maafiyada ay leeyihiin marna uga tanaasuli mayno ma baryayno hadduu qofnaga waxa weeyaan kuma dhacdo Ethiopia inay badayada iyo deegaanka iyaga timaado
deegaan islaamba uma ogolin waayo Christian minor contaminated the Islamic culture isku dhaqan ma nihiin xashiishad qurun oo dhan bay wataan sidaa daraadeed waxaan leenahay ama saxiix ama ha saxiixin laakiin ciidan haddaad 5,000 haysato 50,000 100,000 baan haynaa imanna maysid intaan noolahay meel Soomaaliyeed intayada awoodayadu ay gaadhayso waxaan anigu aad u dul istaagayaa ninka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya sheeganayay oo maalin dhawid aan hadlay wuxuu la shamiiskayaga lagu qabsaday heshiis baan galnay annaga galnay heshiiska yalla gashay macnee sheeg wuxuu ahaa heshiiska aad gashay iyo cid aad la gashay sheeg ummadda Soomaaliyeed u sheeg nin madaxo meel soo istaago heshiis baan galayda oo ummadda Soomaaliyeed si dheeldheela oo jees uga hadla wallahi aad iyo aad baan uga xumahay badan laga hadlayo wasiir madaxweyne ninkii doonaaba sheegto waa ummad Soomaaliyeed baa cid bixin karta iyo cid iman karta midna ma jirto taana waan ku kalsoonahay dadka awdal iyo salal degan waanu aaminsanahay inaanu dhulkayaga badayda u difaaci karno madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay heshiiska Erdogan ku fariisiyay ummadda Soomaaliyeed u sheeg waqtigaaguna uu dhamaadan maleynaya kulli anaga saameyntaadu way nagu yartahay laakiin ummadda Soomaaliyeed heshiiska u sheeg ayaan dhawitoon mowduucan ka hadlayno waxaan u sheegay baarlamaanka federaalka Soomaaliya jawaabha ka bixiyaan ilaa imika ma hayno waxay madaxdii iyo wasiiradii Soomaaliya ku hadlayaan wal maqlaynaa war maxaa dhacan leenahay dad qodobkii koobaad waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud xasan oo dadkani reewdal waa dad peace and life waa dad hooyga aqoonta waa dad ummadda Soomaaliyeed ku soo hirato jaamacadahooga iyo tacliintooda iyo educationkooga all over the world Soomaali ayaa ku sugan gobolkan awdal qaasatan degmada Boorama oo ku nool xurriyad iyo nabad ama baad xasan sheekh maxamuud si gobonimo leh oo xornimo leh ayay ummadani ku taageertay ku saboortay ay kuugu hiilisay adoo waajibkii dastuuriga ee Ilaahay dartii ummadda Soomaaliyeed ugu dhaaratay adoo gudanaya ayaa lagu sabooray in Itoobiyaanka iyo Abiy Ahmed rabitaankiisu una ahayn in dikad yar oo baayac mushtariya imise wadan oo Afrika ayaa bilaa dikada bilaa bada macaamil iyo xiriir iyo marin iyo dariiqad hagaagsan oo binaadamku maro oo maamulku maro ayaa lagu helaa dikadaha cid responsibility-ga kaana ay waafaqdaa waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuudow gobonimo iyo gunnimo labada midbaad ummadda Soomaaliyeed ka rajaynaysa Abiy Ahmed waxaan leeyahay Abiy waad arkaysaa dadka Soomaalidu dad liida oo intellectual oo damiirkoogu wali dhiman ayay Soomaalidu leedahay kana dhashay waad arkaysaa xamar dadka siyaasiyiinta ee aanan soo koobi karin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Shariif Sheekh Xasan leh inta koow iyo laba maba oran karayaba ee damiirkoogu hagaagsan yahay ee khaladka uu ku kacay Abiy ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud diidan waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa haddaan nahay Ciise iyo Gadabuursi anagu dad diyaar u aamanihin bad Soomaaliyeed in si bilaash oo sacrifice lagu siiyo ninka Abiy Ahmed macnawiyan arrinka meesha yaalla ee ku jiraan waxa weeyaan Abiy oo dadkan gobolka awdal 40,000 oo inamood baa diyaar u ah inay ku geeriyoodaan oo ku dhintaan cid allaaliya cid badda soo hadal qaadi karta wallahi bayna jirno bilaahi tallaahi beeshii lagu geynayo ee base military-aad ka dhiganayso deeada yaqaan dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay
warwaad kuma in la isgarab joogsado dad Soomaaliya oo jinsiyadda Soomaaliya inaynu waxa dal ummadeed lagu qaadanayo sidaad inigu u diideen bal anaguna u diidnay mid labaad qodobkayga u dambeeyo waxaan leeyahay wargada bursiga iyo ciisaha elite-ka ciise waa nin PhD holder dadka halka maanta joogo iyo kuwa maqanba mishaawiraan ku keenay arrinka bilaadan leader bay leeyihiin leaderkana xaqiir bini'aadanku kuma noqon karaan haddii xaqiir lagu noqdana ilaahay baa tusa ummaduna way aragtaa war sidaa ciise da'diisa ah ragga ama daba dhacaya aqoon-ahaan ku dhow waxaan leeyahay war waxaan waa science stupid baa la yiraahdaa waxaan oo kale wixii laga aamusay maaha waxaan ku soo gunaanadayaa ciisaha iyo gada bursiga dadka elite-ka ah si officially oo debate meeting ah inaan arrinta as soon as possible iskaga imano ayaan aad iyo aad idin ka rajaynayaa